السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بداوديال ميل كستو أتشوكتان أو أدنا سعوتان ومركلي برامج كيني موسيقى مددالو أو حلقان أو كلا ديجا سو قارة أستانتي في حروتي داي كل هذه مقالة هرقيسة برامجك هبين بوحان ديكو سو حسونا مرتكلا دوان إذا حيسة قريسة هيسا كلا دوان كوضا وقود شعايل كايد مركاسي تعيشينا ماد حيسيسان مرتدا هبين كبرامجك نذيرة محمد عجاء أيام مركزي نذيرة نيروس أيام كمرتيا مرتي علوس أقيم بدن ويان مقالة هرقيسة أيام مدوين كوجودن بيي كنت بشلين سي أما يشوكتي كنت الحيس سي وانصور وين يا وأنا كفر حسنين برامج كي موسيقى مددالة عاو مرتك وهاتو كان السوق يبقشوا ونرجعين إني رمضان تيكور أيام مركزي سوق عند مقالة هرقيسة أنتي بنصر شو يدبل كدي بيعيد عاوة السلام سودو نديرة. ما هتصنت هاي ولا الفاضمة واندو هاي سادي وسع سنتي برنامج كاغن أدبن كاغن مهد علينا. أدبن ما هتصنت هاي دت كنت هذا بدن أيام مركز حسين أيه نديرة نيروس أو كمرتيا برنامج كميسيقية من الدالو. هذه كلا دوانا قاب عيارات كذي عدد كوكبرتين iyo su'aalo fara badan ay markaasi dabcan isweydiinayaan intana daawanaysa barnaamijka miisiga madadaalo xiisaysa toddobaad kasta iyagu sida joogtada ugu xiran nadiira marka ugu horeysa mar labaad barnaamijka miisiga madadaalo ku martay tahay magaalada Hargeysa horta xilligii aad soo caga dhigtay bal daawadayaasha waxaan soo caga dhigtay magaalada Hargeysa Ramadan 5teedii baan imaaday ma sha Allah inaad ka soo wareysay man anigu mooday ma Ramadan 5teedii baan ma sha Allah magaalada Hargeysa intii aad joogtay horta magaalada markii ugu horeysay aad timaadaba ma magaalada waan ku dhashay waan ku soo barbaaray waxaan ka maqnaa 5 sano bis ma sha Allah waxaan jiray magaalada Muqdisho 5 sano kaliya dadka inta badan waxay isweydiiyaan niyo nadiir ma horta maxaga reer waqooyi baa loo badiyaa mise reer koonfurta maxaad kaga jawaabaysaa balarinta waxaan kaga jawaabayaa waxay tahay magaalada Hargeysa waan ku soo barbaaray waa magaalada aan u dhashay Hargeysa Muqdishona waan ku soo dhaqmay macnaha waa meeshan fankii ka hana qaaday heerkan maanta joogan ku soo gaaray ma sha Allah kala duwan baad qaado ay dadku xiiseeyaan oo jecel yihiin hees baa jirta ugu dambeysay oo barnaamijka marka ugu horeysaba waxa ay daawadayaashu ku barteen in hees lagu furo waayo caajiska ka duulaya wahabka ka duulaya macnaha inay heestaasi marka hore barnaamijka ay furtaan oo noqoto heesta hal ku dhigeedu waxa weeyaan qalbigu ha ku qaata 10 oo markaasi aad soo saartay intii ciidda lagu guda jiray oo dabcan hees aad u macaan oo markaad qaadayso dabcan dadka qalbiyadooda iyo qulubtooda soo jiidatay ها هستاس قلبي وهو قاطع 10 waxa areedeeda iskale aniga xaajigeyga laxanka waxa iskale walaalkii BK areedana ku turto ha laxanka waxa iskale walaalkii BK aan xakan ka salaamayo muusiga sidoo kale waxa iskale digaaleero asaga xakan ka kaasto xadnada jawgiga way ka duwanta marada xaaj ku sameeyay maradu xaaj ku sameeyay waxa weey si dareen la lagu qaadaya aad iyo aad bal heestaasi iyo nadiiro nayruush oo aan dhacaw qaab ciyaareedkeeda iskala fadhido Soomaa ha may fadhiga fadhiga ku dhameynayna bal heestaas qalbigu ha u qaato 10 waxa weeye drus ha u dhigto Soomaa ha macnaheedu wax 10 ba ka qaadada wixii kugu soo dhacay wax allaale wixii kugu soo dhacay halkaas lagu ilaabiyo bal waxaan jecelahay inay nadiira nayruus inay loo siiso wax allaale wixii hore dhacay daawasho wanaagsan noloshu waa qoral socdo qasooyinku waa badaan allaha qaniya rogroga qadartuna waa halkii allaha qaniya rogroga qadartuna waa halkii noloshu waa qoral socdo qasooyinku waa badaan allaha qaniya rogroga qadartuna waa halkii allaha qaniya rogroga qadartuna waa halkii qof waa farxadaysto
waqtiga gelin isaga qaato heli haqoosan wixii cakiran haqoosan wixii cakiran qofka farxadaysta wuxuu qabaa waqtiga gelin isaga qaato heli haqoosan wixii cakiran haqoosan wixii cakiran nafyahay murugada qabta hadduu wacdka qaldamay ama wadi qiyaamihi inuu ugu qadar dhacay qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow nafyahay murugada qabta hadduu wacdka qaldamay ama wadi qiyaamihi inuu ugu qadar dhacay qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow nolosha qaxariyo wanaag ayaa loo qaybiyo qofka giyo ku jecel ayuu qadar ka fogeeya qofka giyo ku jecel ayuu qadar ka fogeeya nolosha qaxariyo wanaag ayaa loo qaybiyo qofka giyo ku jecel ayuu qadar ka fogeeya qofka giyo ku jecel ayuu qadar ka fogeeya mid qurawe iyo qalbigu hal qof baana u qalmaa hadduu calafku qaldamay allaha qaadira qoray allaha qaadira qoray mid qurawe iyo qalbigu hal qof baana u qalmaa hadduu calafku qaldamay allaha qaadira qoray allaha qaadira qoraya nafyahay murugada qabta hadduu wacdka qaldamay ama wadi qiyaamihi inuu ugu qadar dhacay qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow nafyahay murugada qabta hadduu wacdka qaldamay ama wadi qiyaamihi inuu ugu qadar dhacay qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow qalbigu hawqaata cashaar qandhada cashaqa ilow daawadayaal haddaynu heestaa kaga soo noqono qalbiga hawqaata cashar iyo codka macaan ee dahabiga ee nadiira nayrus waxaad daawanaysaan barnaamijka aan ugu talagalay inaan markaasi idinkula caweyno halkaad nagala socotaana waa astaan TV iyo waliba sidoo kale barnaamijkii muusiga iyo madadaalo aad iminka daawanaysaan bal waxaan jecelahay nadiira maxamed oo markaasi barnaamijka igu martay inaan mar labaad aan xoogaa barnaamijka aan dhex galno nadiira ma heestii baad weli la socotaa mise waad kasoo noqotay waan kasoo noqday aad iyo aad bal waxaad caawa anagee daawadayaasha nala wadaagtaa
dabcan markeed muqdisho ka timiday hadal hay fara badan bay taageerayaashaada iyo dadka Facebook iyo YouTube-ka ay la wareegayeen nadiiro waa loo hanjabay waxyaabo noocaas maxaa daawadayaasha ku qancin lahayd baryahanba xaggaasi ka yara shidnayd arto taageerayaasheeda aad baan wada salaamaya wixii xumaaniyoodii wixii wanaag wadaba aniga muqdisho cid iga soo bursatay male cid macnaheedu ii soo hanjabtayna malahan just anu ma jeclaystay dadkaygan waxaysan soo boqdo maadaama ay familygayga inta degan yihiin maasha Allah markaas darteedu baan ugu imaada maahane wax kale jira malahan aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa dadkaasi dhammaan inay su-aashaas ama jawaabteeda ay ku qancaan muqdisho waa meel aad u ballaaran goobo qurux badan oo dabcan lagu dalxiisana way leedahay halka aad ugu jeceshahay muqdisho ee aad tagto had iyo jeer aale marka fanki laga yimaado waxaa weeyaan warsheekh marka waa goob aad u qurux badan oo nimcada taala aad inaad seexta ku qabanayso maasha Allah markaas heesaha adigu qaado hees adiga dareen ahaan macna ku sameeysa oo kamid ah heesahaaga ma jirtaa way jirtaa hees waxaa la dhahdaa safarkii jacaylka heestaas أول ما يقصينين لكن ما كان قاعدين درين. ستيج كتاجن تاعي. طبعا بقرة الديش أما بقرة الشاسكا يكون هذا بس كنت بدن. بقرة نمني. فالواحد يقش كيسا قاب كاد عيارته وقاب ضدك قنعيي وتاجرياش طبعا أنت بدك تسوي في العليان وأذو تش على استان. أن أذوق مركا أي ضدك كوسو في العليان محد تسوي نوعية. horta wallahi dadka warkooda ma badhageysto baan waana haday soo amaanaan haday soo cayaan bad horta kii committee ahaan ma fiiriyo taydun baa ii cadaniga dadka kula soo xiriirana dadka ila soo xiriirana debadana waxay yiraahdaan qaar waan ka helay dhahan qaar kamaan helin bay dhahan laakiin waxaan jism u joojiyo hal mowqifkaygu ma ku socdaa ma sha Allah marka inaad iska yara aad ma ku qorshaysantahay inaad dheesha iska diiso jawi degan oo aad horta fanaan walba wax baa macnaheedu gaar u ah adiyaad anigu wax kale aan sameynay ma ku dhahayo laakiin tii dheelaheed aniga balaayan isku haynaa taas inaan daayma laga yaabo qofba wuxuu balwad u leeyahay ani balwadeeda ayada way marka imika xataa ma inaad fadhida kaama haysaa adigii imika yiri bal waay waan iska qaadanaya ma waan idinku qaatay caawa waan iscelcelinaya waan iska xishoonaya aad mahadsan tahay fanaaniin badan baa hayso tira badan oo aad u cud macaan oo jiro dhalinyaro ma jira fanaan aad istiraado alay halkiisa aad ku macaanidba aan dhageystan anigu xiiseeyo والله وحن جعلها فنانة هذا عبد الرحمن ما شاء الله فنانة اسمها هي سيدة ودقيستان جعلها كم ده هي سيدة دقيست هي سيدة ده هذا نقول هذا عبد الرحمن هي سيدة نقول قاضية هي ساعة قبل هي قاضية ما أدري وهذه هذا تقول صباح ده ما والله ما نقول صباح لكن وان جعلها ومركان وان أنا ما مفكر سنة هي أما هقول هي سيدة هنا حوايصة قيرة درين قيرة بس هذا دون بكاد حقاد هي بلير نقطور بدبور تهارات ده عشق بجرستو شباديك على بودو وحنشيدين كماريو وحنشيدين كماريو أنو تيدي جيفكي يا سلام ده وحن كل هذا البقم waxaad jirtay hees la yiraahdo jeexaygii oo aad soo qaaday oo dabcan kamid ah heesahaaga bal heestaasi jeexay ma xaqi jacaylkii baa jeexaygii mise waa xaqi saaxiibtinimadii ma wallahi heestaas iskiikii soo aado anigu dhanayga ma qusayso aadiya ereed xaskala abwaan deeq alfoon halkan ka salaamayo aan leeyahay waan ku salaamay muusiga xaskala Yuusuf digaala yare ilmaan hadalku ma jiro asna halkan ka salaamayo ما شاء الله بالهستاسنا waxaan rajeynaynaa de sidii heesii hore ee lagaaga bartay iyo miisiga aan waxaan saada mararka qaar markaan heesaaga dhageysto inuu dirito miisiga ma si gaar ah u xulto waxa tiri anigu xagga jaaskii iyo miisiga hay israacaan ma walaalo markii uu leeyahay hees bal uu soo laxmeynaya baran uu da waxaan la tacsiim raba halow waxaan ku isku ruxaan raba walaalo mar leena waxa tiri waxa jira fanaaniin markay mikrofoonka haystaan aad moodeen tacsiim u taalo walaal de wuxuu ilaa awal baan
يا يقبل سيدي معناه وين اسكا جاسو اسكا inaad iska xaraabisatid walaa aad iyo aad bal heestan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo daawadayaasha iyo taageerayaashada markana waxaan leeyahay bal jeexaygii iyo nadiira wadinka Digital City 2019.
waayo jeexayga mididu naftuy ku jeceshe janta ma isla qaadnaa dabcan waxaynu ka soo noqon doonaa ama ka soo noqonay heestii jeexaygii iyo weliba codkii macaanaa ee nadiira barnaamijku bartamihii ayuu marayaa weli halkaad ka daawanaysaan waa Astaan TV nadiira ayaan jecelay inaan markan dib ugu laabto nadiira heesta jeexayga caadi maaha dee inkastoo inay heesahaagu dabcan aanay kala dhicinba mahadsantahay walaashay bal waxaad iga sheekaysaa safaradii aad u baxday inkastoo muddooyinka u dambeeyay safar kuun ku jirtay safarkii kuugu xiisaha badnaa ee jeclaysanaysay magaaladee buu ahaa magaalada Kampala halkaas maxaa markaa uu safarada kale kaga duwanaa wuxuu kaga duwanaa dee xajkayga ila joogay maasha marka xajku hadduu dee joogo oo dalxiiskii iyo dajowgii deganaa iyo ay arrimahaas isku duba dhaceen hadal uma baahna taas hadal igu mara waxaa jira abwaano badan oo tiro badan oo Soomaalida oo erey sameeya ma jira hal abwaano oo xiisaysan wali erey ka qaadan aan wali erey ka qaadan wallahi aan abwaanintu isku kay mid laakiin qofan ku dhaay maanta qofka san gaar u xiisay ma jiro qofkii maanta aduu waa bilow yahay xataa waa isku kay mid oo ereyadu ka maxaad iska qaadata dabcan heesa adigu marka lagu soo diray abwaanku ku soo diray maxaad ku xulataa anigu waxaan ku xushaa heesaha inay horto qiso leeyihiin ama dee ay meeshay ku socdaan ay u egyihiin oo markaad qaadayso dareen sameynaysa anigu balan macaansada horta qofka haduu wixiisa macaansada la macaansada ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay waxaan jecelahay hees cusub oo aad imika soo saartay meel hore aanad ka qaadin oo gabdhaha la yiraahdo hal ku dhigeeda heestaas horta weligay nimanka ban karbaashin laba mar miyaan karbaashin markii saddexaad karbaashkaasna ku raal noqdaan dhibkoodii iska batay gabdhihii markaas gabdhaan xoogaa dawiriyay aad u hiilinaysaa ereyada waxa iska leh abaan suju laxanka waxa iska leh jinshumi muusiga waxa iska leh SMS oo halkan kooda marka waxaad leedahay rag oo caga dhigto oo dee hablaha ka xishooda Soomaali dar ilaah ku daayaan walahi gebigoodaba bal haddaan goorihii oo dhan ku fadhiisiyey oo barnaamijka intii hore oo dhan dee fadhi noogu soo socday adiguna aanay dadku dabcan fadhi kaaga baranin dareenkuna ama se muushinku waa kaa raacay inaad kacdo oo aad istaagto aad golaha ay soo yeesay waxaan isiri bal martida muraalkeeda hala ilaaliyo marka hal mar way iska istaagi doontaa aniguna kulay dee meeshan waa cadariba dhigi doontaa oo ka kacaya balaasta sanadii ku soo dhaweyn doona xan lahayd daawasho wanaagsan hooyadii ku dihato
daryeeshaan waa inaad daryeeshaan waa inaad daryeeshaan waa inaad daryeeshaan don xariira weeye ku danaysahaysadan mar hadday ku diido ay ku dooni weydana dambi lama doono waa ku damir xume ragga dumarka caaye ceebahooda tabiyo dar ilaah ku daayo don xariira weeye ku danaysahaysadan mar hadday ku diido ay ku dooni weydana dambi lama doono waa ku damir xume ragga dumarka caaye ceebahooda tabiyo dar ilaah ku daayo daawadayaal haddaynu kaga soo noqono heestii gabdhaha oo ay nadiir u istaagtay oo wacdari halka ka dhigtay oo ay tiri hablaha iyo de waxaan kula weydin dhashay hooyadu waa dhali doonta marka laga xishoodo way fiican tahay oo de raggiiba imika waxaad moodaa inay xaggii hablaha adun yar soo jarjaraan bal heesaha fara badan muddooyinka u dambeeyey fanaaniintu ka heesayeen wax lagu qaato marajeynin gabagabadii barnaamijka ayaynu isugu soo noqonay oo markaasi hees iyaduna safarkii jacaylka ayaaba gun inoogu gabagabaa balse laakiin waxaan ka horeysiin doonaa nadiiro oo ii marti ahayd inaan mudnaanta koobaad siiyo waa iga mudanta waa mahadsantahay walaashay Faadumo aad baan kaaga mahad horta maanta waa isla soo wareegnaa kolay marxalado badan ba isla soo marnay gurigii ka waxa weeye qariib baad iska dhigtay inkastoo talida magaalada Hargeysana waa ku dhasho oo ku barbaaray walaalda 5 sano ka maqnaa 5 sano meel wax laga soo iibiyo ma garaneed goorma maxaa dhismay 5 sano dhan baan maqlaa maxaa dhismay maxaa dumay horta ii sheeg maxaa iska magaalada Soomaaliya aad wan iloobida walaalo garbaan u leeyahay inaan ku wareejiyo maasanta meeye waxa weeye waa isku leenay in lagu soo dhaweeyo martida waxa weeye de isku leeyahay iska martida tahay aad dalkan inaan soo dooqay sheego aan soo dalbay aad mahadsantahay waxaan jecelahay inaad cidii aad salaamayso iyo aan kugu soo dhaweeyo horta waxaan salaamayaa wixii af Soomaaliga ku hadla meel walba joogaan waan salaamayaa familkeyga waan salaamayaa adduunka hal cunugan ka qaba jooga waan salaamayaa ilaahay ku barakeeyo adigoo 10 iyo 16 mar ayaan saragno insha Allah imsa taasha kana dhasho cunug imsa cunug baa taasha kana dhasho horta wuxuu ilaahay ku siinay waxa alxamdulillah laakiin wax iigu aan rabo inaan qaadan ku sheegay inuu ilaahay siin karo ilaahay og laakiin aan waxaan jecelahay laba wiil iyo laba gabdhood bes sida caalamkeena ku dhashay walaal caalamku iska yaa Soomaalida aadiyaad Soomaalida qeyr wax si waska taxnaa laakiin loo baahan hadda manala joogaysaa mise waa socdaad ma waan joogayaa waska dalxisay waa heesaa iyo fiidiyaduna soo badan doona insha Allah aadiya anna waxaan jecelahay heestaas safarkii jacaylka oo taraxa loo safaray ma Muqdisho ma Hargeysa ma Kismaayo iyo ma Jigjiga maba garanayna meel u safar ku yahay wuxuu ka wada ilaahay oo ka laakiin anuguna waan safray way ku badbatay qaaday ab safray waxa qaar ku soo labtay way ku badbatay jacaylku aniga safarun ka bixi waayay aadiyaad jacaylka laftirkiisu safar buu ku jiraa ilaahay soo dhaweey Nadiir Nayrus bal waxaan jecelahay naanaystaada Nadiir Nayrus ya ku bixi horta Nadiir waa magacayga rasmiga Nayrus waxa ii bixiyay abwaan ilaahay caafimaad ha siiyo cimrigana ha dheereeyay abwaan sangu ma sha Allah ku bixiyay marka wallahi uu ila jeclaaday wuxuu way baxaysaa gabigeedu waa waxa weeye waa shamaca fanka wallahi wuxuu ka waday laaw yaclam laakiin magacaas uu igu dhajaan wana waan u qaat ma sha Allah
daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni miisig iyo madadaalo oo aad gorahanba kala socoteen Astaan TV xarunteeda magaalada Hargeysa ay ku leedahay. barnaamijkana waxaa ku marti ahayd Nadiire Maxamed Cige, Nadiire Nayruus, oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayno. kamarada iyo muuqaalka quruxda badan waxaa suuro geliyay toddobaadkiiba hal mar. mubaarak gabi ayaan leenahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ahaa injineer Cabdi Casiis Maxamed oo leenahay, aad baad u mahadsan tahay. injineer Yaxye iyo sidoo kale bahda Astaan TV oo isku duubanba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. barnaamijka waxaa soo saaray ka idin soo gudbiya anigoo Faadumo Riyaad. intaynu isku soo noqon doono barnaamijka xiga waxaan ku dhaafaynaa heestii safarkii jacaylka. ilaahu waana jacaylku nagu safri mayno leenahay. hawsha wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo. sultaanki naftaydu saradada adduunkiyo sadkii aan sugayo sultaanki